xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa fiila Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa weli taagan. Waxa sii kordhaya iyadoo deeqas kasta loo sii dhawaanayo aaga kala taga iyo in qolo kasta ay xoogga saarto sidii ay tan kala saaxadda uga saari lahayd. Mid xaqiiqo ah waa in saaxiibadii 2019 wada jiray oo ay foolaad u kala yihiin Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyihii guddiga doorashada ee xilligaas iyo Axmed Maxamed Islaam oo madaxweyne xilligaa loo doortay. ay qolo kasta doonayso in iyadu hesho baaqiga ugu badan ee kolka la dagaalamo. warbixintana waxaynu ku eegaynaa Xamse iyo Axmed Madoobe saami qaybsi hoose dagaalamaya. adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store. Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay. labada nin maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta ayay si toos isaga weerareen. midkoodna ma qarsan dagaalkiisa oo hadda gacan ka hadal inuu isku bedelo cabsida ugu badan laga qabo. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in xukuumaddiisa dan qaran ridideeda uu ka shaqeynayo Axmed Madoobe ayna qasabtahay in la helo isbedel siyaasadeed oo ka dhaca hoggaanka Jubbaland. taasoo macna ahaan tilmaamaysa in Xamse doonayo inuu Axmed baxo gabi ahaanba oo Jubbaland laga dhigo maamul taabacsan dhinaca dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Xamse halkan hadalkiisa waxa la aaminsan yahay inuu laba fariimood kala lahaa mid uu diray isla gudaha odayaasha dhaqanka ee beeshiisa oo kula hadlayo oo tilmaamayo in dhinaca Xasan Sheekh uusan dagaalku uga socon ee dhinaca Axmed Madoobe uu diidan yahay inuu sii joogo kursiga ra'iisul wasaarenimo ee Soomaaliya oo halka kula loolamayo balan hore loo galayna Axmed Madoobe uu ka baxay. labaduba hadda waa ka gudban xeerka dhexdhexaadinta waxayna kala qaateen in midba kan kala karkaarka siyaasadda ka dajiyo. Axmed 10 sano ee la soo dhaafay ayuu haystay hoggaanka Jubbaland iyo kan beeshiisa waxaanu wax ka go'aamiyay hanaanka doorashooyinka 2016 ilaa 2022. Xamse magaciisu waxa uu soo shacbahay markii uu 2019 qabtay doorashadii Kismaayo oo dadka Jubbaland ay si xooggan ugu kala qaybsameen. waxaan hadda isku arkaa inaysan siyaasadda ku sii wada jiri karin Axmed Madoobe. heshiis hoosaad aan kor loo sheegin oo dhacay June 2020 ayay labada ninba ku go'aansadeen inay ku kala haystaan Kismaayo jagada ra'iisul wasaaraha. dadaal kastana loo galo in ciddii mucaarada labada dhinac ay la dagaalamaan. laakiin hadda heshiiskaasi waa buray sida uu dhawaan sheegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo balankaasi looga baxay isaga taasoo uu muujiyay halka dhinacyadu ay kala gaareen. labada darafba waxa la kala duuban dhinacyo saami qaybsi ay wadaagaan oo dhinac kasta uu doonayo inuu garabkooda guusha kama dambaysta hantiyo. wayse kala awood badan yihiin aaga ugu ballaaran ee hadda laga eegi doono loolankoodu waa gudaha waxgalka beesha siyaasiyiinta iyo deegaanada labada dhinac. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu masaacadihii la soo dhaafay dadaal badan geliyay inuu la kulmo waxgalka beeshiisa kuna qanciyay in la gaaray xilligii Axmed Madoobe la soo afjari lahaa iyadoo meesha laga saarayo oo ka dagaalamayo hadallo kala duwan oo dhinaca Jubbaland ka yimid oo ahaa in israhan deegaankaasi ay u beegsanayaan kooxda madaxweyne Xasan Sheekh. Xamse oo halka xoogga tijaabinaya qaar ka mid ah saaxiibada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan si ay uga guuleysan lahayn Axmed Madoobe la dhaafiyo hoggaanka siyaasadda Soomaaliyana laga saaraba iyagoo adeegsanaya awood kasta oo ay leeyihiin. magacaabidii xubnaha ay ku jiraan saraakiisha ciidamada waxa loo arkay in Xamse uu qaatay go'aan ah inuu tijaabiyo awoodiisa xagga ciidamada uu xoogga saaro in geesaha looga yimaado magaalada Kismaayo. ra'iisul wasaaraha iyo xirtiisu waxay ku guuleysteen inay Garbaharre oo gadaah la wareegaan Raas Kamboni oo Jubbada hoose ciidan ka dajiyaan. labadaasi goobood Axmed Madoobe waa looga adkaaday ilaa hadda sida muuqata iyadoo furfur xooggan ay dhinaca Xamse galiyeen si ay u soo jiidan lahayn saraakiisha ciidamada Jubbaland ee dhanka Axmed Madoobe wali baaqiga ku ah horeyna wada safnaa. qaarkood waa lagu qanciyay aragtidan qaarna waa lagu guul daraystay. ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho. aag muhiim ah oo ay kooxda Xamse doonaysa inay qabsato waa laba deegaan oo kala Dooble iyo Afmadow waana laba deegaan oo saami qaybsiga Axmed iyo Xamse ay kaga xoogan tahay Kismaayo. cidii labada haysata waxa la aaminsan yahay inay haysato awoodda sharciyeed ee Jubbaland. inuu Xamse ciidanka federaal ka dajiyay Raas Kamboni kuma imaan gaamis dhanka Axmed ka jira balse waxa fududeeyay xilka uu qaatay taliyaha ciidanka lugta waa nin aad u fahansan habka ciidamada iyo siyaasadda Axmed Madoobe u shaqeyso maadaama uu soo noqday taliyaha sirdoonka ee Jubbaland halkaana ay tahay aagga laga hagaynta badan amniga iyo siyaasadda deegaanadaas. in Axmed lumiye Khalid waa hayaan natiijada ka dhalatay maadaama uu si dhab yar Xamse u helay nin fahansan Axmed Madoobe iyo deegaano istaraatiiji ah
oo sheekha Kismaayo ku ah oo tin ku taagan ugana baahan tamar ka badan tii lagu lumiyay awoodda kuloolanka labada nin ee isku dhariga ayaa ka jirta marxaladda tijaabada xoogga iyo in ciidanka lagu kala calaf qaado waxaana loolanka soo afjari kara lana ordarisi karaa cidda liminta qaadata kolka gacmaha la iskaliyo ama farahoodu isgaaraan inkastoo aysan muuqan labada dhinac midna ka soo degaya mowqifkiisa xalka dagaalka laga raadiyeyna ay taagan tahay haddana in dhammaan waddooyinkii kale ay soo xirmeen ayaa muuqata kadib markii ay soo baxeen waraaqays ka soo horjeeda oo waaran soo qabashaa ilaa hadda dhanka ciidanka markaan eegno waxaa dhibco aan badnayn wata Xamse oo ah nin shibil ah balse akhriskiisa ciidanku uu yahay inuu keenay qaadashada deegaana aan Axmed hore loogula loolamin dhanka Axmedna waxa uu hajistay siyaasadda iyo matalaadda xildhibaanada labada aqal Xamse waxa bilowgii khilaafka banaanka uga booday xukuumaddiisa wasiirkii beeshooda ku matalay wasiirada waxa sidoo kale Kismaayo iska xadeeyay dhammaan mudanayaashii labada gole ee saamigiisa kuna jiro kursigu 3 sano ka hor ka soo qaatay Kismaayo xukuumadda Xamse isku daygeedii siyaasadda iyo ku dhex dagaalanka Kismaayo ayaa aad hoos ugu martay intii laga filan karay waana Xamse aar u haystay senator Gabose oo mar madaxweyne Kismaayo ka sheegtay marna fikradda Xamse fidinaya dhanka matalaadda inkastoo ay walba ku yimaadeen rabitaanka Axmedoobe haddana Xamse oo xilkii xukunka iyo xoolihiiba haysta ilaa hadda waxaa la aaminsan yahay in galaangal uu ku yeesho Kismaayo ay aad u hooseyso iyo sidoo kale inuu haystaba xubnaha kuraasta labada aqal ee beeshiisa ka soo jeeda halkaas markaan ka cabir qaadano Xamse waxa ka dhibca sareeya Axmed Madoobe markaan eegno siyaasadda waxa ku awood badan Axmed oo wali waayaranimadiisu ay xisaabta u saxday balse ciidanku waxay u muuqataa inuu Xamse waarcar ku socdo lama sii yaqaan inuu Kismaayo gaari karo iyo in kale waxaa jira hal qodob oo kii ku guuleystaa inuu hanan karo talada ugu dambaysa iyo waaritaanka siyaasadeeda taas oo ah geed fadhiga iyo goos dambeedka qoyska labada nin ee xilligan siyaasadda beeshooda ku dagaalamaya waa Axmed Madoobe oo wata magaca Jubbaland ahna saldhigga ugu weyn ee beeshooda ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya iyo Xamse Aar waxa isaguna uu sitaa magaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ah xilkii ugu weyn ee qof beeshaas ka soo jeeda uu qabto marka Axmed iyo Xamse dagaalka ka dhaxeeya waa ka weyn yahay siyaasadda labada dhinac ee federaalka iyo Jubbaland ka dhex jira waana mid ku salaysan taariikh iyo jiritaan mid waa taariikh waa in beesha ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Madoobe ay arkaan iyaga oo sameynaya haysashada xilka wasiirka koobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee xorriyadda qaadatay 1960kii marna waa jiritaan waa in Kismaayo markii ugu horeysay qofku hayba uu ka talinayo in ku dhow rubuc qarni hadda sida markaad u fahansan tahay salka khilaaf ee labada dhinac waxa inoo soo baxaysa in madaxweynaha beeshoodu aysan dagaalkan banaanka ka joogeen ayna ku qasban yihiin inay dhan raacaan si ay kafadda dhan ugu rajixiyaan deegaanada ka baxsan Soomaaliya ayaa iyana oo loolanka labada nin laga dareemaya walow khilaafku yahay mid ku kooban xuduudda dalka haddana halka xuduudda inta uu yaalo waxa ka badan inta banaankiisa laga doonayo waa in qoraweynta iyo musdambeedka labada dhinac ay midkood guusha qaadataa si kasta haatee Xamse oo siyaasadda fikirteeda ku gaaray salaan aan lula socon halgan iyo khibrad dagaal ayaa kulanka kala baxa oo cimrigiisa siyaasadeed la gelaya waayo jooga ku xaragoonaya waqti dheersiga xukunka ee Soomaalida xilligan nool haddaba markii doonaa in dhiiranaanta Xamse ka raysa khibradda Axmed mise Axmed Islaam ayaa kursiga Xamse sadaqa uu madaxiisa ku badbaadsado u bixin doonaa haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga Payc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa Payc